kulanti wanaagsan mar kale iyo cooking with Xamsa wax kariskii ma waxaysteen maanta waxaa idin tusayaa bariis 2 daqiiqo aad ku karin kartaan markasta aan kariyo hooyooyinka badan waxay dhahaan ilmahayga Xamsa qudaarta ma cunaan see u baraa qudaarta markaan qudaarta cuntada ku daro way maaragtay daadiya waxyaabo noocaas oo kaleeta maanta waxaa idin tusayaa si fudud oo bariiska aad maaragtay qudaarta ugu dhex karin karto bariiska nooca anaga aan karsano basmati ma aha inta badan noocan aan karsana maanta idin tusi doona aad u macaan yahay hadaa barataan bariiska lama karsanaysaan daawada bariiska sida fudud loo sameeyay wiilasha iskaablada ma sha Allah 5 daqiiqo ka soo tuuri kartaan habkaan waay habka maaragtay aan ilmahayga qudrada cuntada ugu dhex qariyo adiga maxaa sameeysaa marka insha Allah nala share garay hoos ku raad fariimaha videogana la wadaag walaalaha kale maatantiin assalaamu calaykum haya asxaabi soo dhawaada maanta chickenkaasna waa la dubayaa bariis iyo fududna waa idin tusayaa chickenkan ka bilaabeynaa oo digaaggaas aan ka bilaabeynaa waxaan sameynaynaa waa dhaqaynaa si fiican u dhaqaynaa khal iyo biyo iyo qolofta kama fiiqaayo maxaa yeelay dabkan saaraya dhuxusha maadaama aan saarayo ma rabo inuu chickenka iga qalalo hadhow markii uu ku karo kadib aad ka fiiqi kartaa inaa cuntid muhiim ma aha laakiin marka hore saan aniga u dubaa marka si fiican usoo dhaqato khal iyo biyo kusoo dhaqatid garooraan ku daraya waa ujeedaan waa yogurt oo kan malabaaba ku jira waa macaan yahay wax yar iyo wax yar oo saliida 2 qaado camal waxaan kaloo ku darayaa sinjibiil shiidan cusbo toon shiidan paprika oo barbarooni guduudan qorayeen maaragtay xawaaji buurbuur iyo huruud intaas ma sha Allah waxay ka dhigaysaa alaab la maqlin ma sha Allah ka dhigaysaa marka si fiican gacmahaaga kala xishoonin alaabta cuntada ay karsanaysa gacmaha hadaa si fiican usoo dhaqato dib ma la cuntadaada inaad taabatid marka ayaan barnooyaysa idinka qaadintaas insha Allah dhinacaas ha ka welwelina si fiican farahaaga markasta isku day markaad chickenka dhamaysto taabashadiisana inaad faraha si fiican u dhaqdo intaada chickenka taabanina si fiican faraha isaga soo dhaq aad ay muhiim u tahay arrintaas markaas kadib asaas aa u marayso saacadaad ku haynaysaa firinjeerka dabkaaga haddaad dhuxul shidanaysid sii hurso ama birtii sii nadiifso birta inaad markasta nadiifiso waa barbecue aa ku dubayso markaas kadibna waa saarsaaraysaa 20 daqiiqo 25 daqiiqo kadib fiiri meesha lugta maaragtay waa ka jaraysaa si maaragtay aad u aragtid hilibka inuu karo chickenka inaad si fiican isaga karisaan waa muhiim adigoon qallajinin aad u muhiim u yahay laakiin haddaa barato hilibka noocyadan loo sameeyo wax ka macaan male maasha Allah waana fudud yahay shaqo badan maaha kaali aragan ku leeyahay ilmahana waa jecel yihiin haddana waxaan sameynayaa bariiska maanta aan karinayo waa cali uraay kay dhihi jireen Soomaalida ama basmatiga noocyada wadankan waxaa laga dhahaa bankalpiin xawaajiyaasha aan ku darayo wakaasaan waa toon xawaaji buurbuur iyo cusbo wax kale kuma daraayo yaanyada marka mishiyo birtaan waxaan usoo qaatay walaalo badan ay dhahay xabsa biraha aa qabto kale ma qabno wax muhiim maaha tan xataa waa kuu jarjaraysaa wax saasaa u xoqonaysaa yaanyada barbarooniga khudradda dhan aan u baahanahay basasha markaasaas u xoqotid aad diyaarsatid isku day in ay markii aad saliid dabka saarto si fiican intaan u shiilmato hadday yacni waxaan ceyriinta oo bariiska aad ku dhex dartid wixii ma macaanaanayaan basasha hadday ceyriin tahay cuntada maaragtay aad hore kaga dejiso qaraar ay noqonay cuntada basasha waa qaraar tahay marka make sure inay basasha sweetkeedu uu soo baxo oo si fiican aad u karisid saliidii baa dabka ii saaran wixii khudradii aan jarjarsaan ku daraaya ilmihiina xataa way jeclaanayaan wixii markii maaragtay aad waqti yar siiso 15 daqiiqo alaabtaas ha isku karto toon yar aan ku darayaa waxaan ku darayaa filfil waxaan ku darayaa huruud yar xawaaji buurbuur maasha Allah intaasaa maaragtay meel fog tagayso iyo cusbo ani maraq digaag kuma darsado cusbo yaraan ku darsadaa cusbooyinka oo Soomaaliya oo kale sii saltiga waa huruud waxaas aad u jeedaan kosher saltaa wadamadan ku qoran taasaan ku darsadaa dhadhan fiican cuntada u samaysaa maasha Allah markaas kadib basasha kaa karto haddaa rabto cuntada inay kuu macaanaato basasha waa inaa karisaa kadib Soomaha bariiskii waa weynaa oo aan kalbiinka ahaayoon dhaqay aan ku karshubayaa kadibna biyo kulul oo aan kirliga aan ku karkarsaday aan ku darayaa ama maraq ama wixii adiga aad jeceshahay ani biyaan ku darsadaa inta badan markaas kadib because meeshaan kana maraq ka soo baxaa qudrad way moogtahay maraq fiican oo waxa ka soo baxaya fiican marka biyo kulul aad ku shubaysaa filfil aad ku daraysaa dabka u gaabi dabka marka u gaabiso maasha Allah bariiskaas iyo chickenkaas waxaan ku leeyahay inta marayaa ka dhacda maalintii يعني ilmihiina qudaartii aad rabtay oo firinjeerkaaga ma halaabin ayagaa ku siisay oo meeshaas biyaha karkaraya saas markaa ugu shubtid dabka u gaabso tartiibu ku karaya markaas kadibna waxaan ku leeyahay miiska ma gaarin qof kasta tartiibu inta u gurtayo banaanka la fadhiista samray ahayd maasha Allah tabarakallah saas ilmaha u bara qudradda idinkana waxaa samaysaan ila soo maaragtay sheer gareey oo ilmaha sida aad habka aad qudradda inay cunaan u bartaan haddii aad rabto saliidii safa herbal oil ama wejiga ahaara iyo wax ku leedahay oo aad rabto inaad si dabiici isku nadiifiso kiimika la'aan ama timaha kaa go'aan
ila soo xiriir nambarkayga fiberka wakaasa snapchat haddaad reere snapchat tahay waa shidan yahay snapchatkayga igala soo xiriir snapchatkayga waxyaabo badan aan soo geliyaa cuntooyinka maalin kasta aan kariyo waxyaabo badan aan soo geliyaa igala soo xiriir bariiska wakaasa sidaasuu ku diyaarsan yahay chickenkiina waa kanaa ku xigo maasha allah isku daba qabo markaasa hadde waa la yaabo snapchatka igala soo xiriir raashin dadkii aad taqaanay 10 baa dhaka diiran 10 baa food dhalaa leh adna tuurkan istaagsan iyo timahan buulka la moodo tabtood maad wax ka tiraahdid dhowrre fooqal dhowrre tubta ceel ku aroortay iyo tuulada iska joog baa cimrigaadii ku tirmee ma tilmaan baa ku anfacaysa ma taqaanaa safa herbal oil safa waa saliid doora waa dabiici sifaysan oo ku sifowday daryeele safa herbal oil mar un ku eg timahaaga taranka timahaaga waxaa dheer turuqaada oo markaad tis ku siiso Tylenol damci maysid tartiib marso dawadan timahaaga ku eg dawada herbal safa herbal oil oo aad ku anfacayso dawadan wanaagsan waxaad ku heli kartaa oo aad ka dalban kartaa internetka waxaad ku bixin kartaa lacagta PayPal waxaad ku bixin kartaa xawilaad haddii aad ka agdhowdahayna waxaad ka doonan kartaa goobta aad ka helayso ha moogaanin safa herbal oil oo ah dawa aad u wanaagsan